Hello everyone, Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada channelkayga. Documentigan halkan iiga furan waxaa ii soo diray mid ka mid a shaqaalaheena isagoo ku codsanayo lacag uu la doonayo in lagu dhiso xarun yar. Waad u jeedaa wuxuu dalbanaya waxa weeyaan $421. Marka qaabkan iigu soo diray. Marka waxaan is iri arrimuhu sidan si ka wanaagsan usoo diri kari lahaa oo documentigan sidan u ka qurxin lahaa ama si macquul oo kaleeto ka wanaagsan oo professional usoo diri lahaa. Marka sidii aan anigu islahaa arrimuhu inuu ka dhigay ahayd baan anigu ka dhigay. Marka waxaanan is dhahay arrimuhu dadka uga faa'iideysaa si mataqaana u fahmaa iyaga naftirkooda waxyaaba muhiim weeyaan marka shaqada iyo waxyaaba noocaas la joogo. Marka bal adigu eeg documentigan qofku u soo diray iyo documentiga next documentan oo kale waa isla stii laakiin haddaad eegto mideed adigu isha soo jiidan kartaa ama haddii aad boos tahay oo nin hay'ad u sarreeya ama wasaarad u sarreeya ama company shirkad kale u sarreeya hadduu yahay aad tahay midkeed adigu ku riyaaqi lahayd shaqaalahaada mid ka mid ah tan kuu soo diray isla documentiga shaqaale kale tan kuu soo diray noocaas waa iska dareemi kartaa dee waa iska cadyahay waa kaafi kala dheeri. Marka transformationka ku dhacay isbedelka intaa la eg ee ku dhacay waxyaabihii tallaabooyinkii aan qaaday oo sidaa ugu bedelay waxaan is dhahay armay dadka ka faa'iidaystaan oo dadka uga faa'iideey. Marka qaybta xigteen cashirkan aan muxuu ahaa si fiican markaas aan u gudageli doonaa nidaamyadii iyo steebyadii iyo muxuu ahaa tallaabooyinka aan qaaday si ay documentiga sidaa professionalka ee quruxda badan ay u ekaatay markay la soco qaybta xigta cashirkan. Isku soo noqod wanaagsan waa kana documentiga noocan uu eg yahay waxaan rabnaa inaan ka dhigno noocan. Marka waxay noqonaysaa first ugu horreyn waxaan rabaa inaan mataqaanaa aan ka bixisho muxuu ahaa grid lines inaan halkan ka baxsho oon ka saaro laakiin wax aanan ogeyn ayaa ii muuqda cilad ayaa ii muuqato shaashadda igaga muuqato. Eeg waxaa iga maqan lambaradii halkaa ku qornaa la dhahay row headers iga maqan yihiin. Waxaa kaloo iga maqan column headers xarfiya halkaa ku qornaa ABCD halkaa ka taxana Excel sida lagu yaqaano. Bal halkan taabaan aragno kan waa kuwan marka kuwii kalena waa kaa laakiin sheetkan anigu iga maqan yahay ujeedaa. So inaan si fiican ooga shaqeeyo sheetkan way igu adkaanaysaa markaa. So the first step waxay noqonay taas arrintaas inaan fix gareeyo oo aan saxo waxaan ogaana ma aha. Marka bal aan eego qaabkan ku saxeen waxaan eegaynaa okay waxaan tegayaa file waxaan tegayaa kadib options anigu MS Excel 2016 aan isticmaalayaa adiguna kulley markaad cashirka daawanayso waxaad isticmaali doonto adiga iyo kulley iyo waxaad haysatay ku xiran tahay. Marka halkaa markaan joogo waxaan tegayaa haddana advance markaan taabto waxaa ii soo baxaya dialog boxkan kanaan soconaya waxaan tegayaa meel la dhahay display option kan waxa waaye workbook ma rabo waxaan rabaa display action oo sheetka waa kana worksheet display option for this worksheetkan anaga ii furan muxuu yahay sheet 1 weeyaan intana maxaa ku qoran sheet 1 so halkan waxaa ku qoran eeg meeshan show row and column headers laakiin ma tigaraysno waxay inooga maqan tahay taasa sababta halkaasaan taabanayaa waan tuujinayaa tigtaas u sameynaya kadib okay aan le soo gelayaan markaa we have now everything ready. Next step waxay noqonaysaa taas cilada ahayd waan hagaajinaa saxnay. Next step waxay noqonaysaa in leemankan grid lines kala dhaho Excel uu leeyahay leemankan kuwa qaarna xagga sare u socda qaarna jiifka inaan meesha ka saaro. eeg mida aan saxay fiiri halkan liish waaye andhawa iska liish okay hadda inta ku qoran kartaa laakiin leemanka meesha ka maqan yihiin so wixii qaybtaad xogta ku jirta bisa kuu muuqato. halkan aan tegayaa kadib marka leemankaan saara leemanka sidan ku saara waxaad tegayaa view hal mar aad click siinaysaa kadib waxaad tegaysaa halkan maxaa ku qoran grid lines laakiin waxaa saaran tick sax ayaa saaran saxdaasaan ka saaraya tigtaasaan ka saaraya waan tuujinaya hal mar markaan tuujiyo ka baxaysaa qaabkan noqonaysaa liish
bas noqonaysa. I like doing this aniga inta badan. I don't like Excel markaan isticmaalo usually inaan either color isaga qariyo iyo inaan mataqaanaa toos uga saaro meesha uga taqluso ay noqotaa so that wuxuu noqonayaa document adigu qaas kuwa noqonaya kay nadiif sidan oo kale taa qaybta xogta ku jirta bis ka muuqanaya. So I like it. That's first step. marka waa kana marka those are the steps. Next step waxa waa inaan bedelo lambaradan leemankan border lines kan asaga uu isticmaalay inaan bedelo oo aan ka dhigo kuwa noocan oo kale eeg border lines ka fiiri madow ma aha oo si ay tiq uma aha yaa waxay u egyihiin grid lines ka meesha aan ka saaray u egyihiin eeg haddaan soo celiyo grid lines ka hal mar oo kale tigsiinaya grid lines fiiri lama kala aqoon lama kala garanayo eeg bal ayaga ka quruxsan baad adeegto okay wow okay so kuwaasaan rabaa marka inaan bedelo eeg waxaan samayn doonaa marka waxaan sameynayaa hal maraan wada highlight garanayaa ilaa halkaasaan highlight garanayaa oo haddaan saaraya kadib waxaan tegayaa halkan borders markaan tago eeg inta dhan waxaan waxa kama qaadanaya hadda layaasha u hooseysan tegaya maxaa ku qoran border more borders halkaasaan taabanaa markaan taabto dialog boxkan ayuu soo baxaa dialog boxkan waxaa kaleeto ka aadi kartaa ood ka heli kartaa inaad fanaxdan qorto intaad halkan qodi lahayd fanaxdan inaad qodo kana weyna ku soo baxay adiga borders taabanaysa kadib dankaas ku noqonaya so halkaan anoo joogo marka halkan waxa leenkana ii dooran waa aragta haddii jeer defaultiga leentigana dooran inta badan sababta uu dooran yahay waxaa waaye leenka asaga uu isticmaala waaye qofka sameeyey documentiga leenka uu isticmaala waaye laakiin anigu leenkaasaan rabaa laakiin kalarkiisaan bedelaya halkan aan taabanaya tan kalar yaroo iska dhaalan qaadanaya oo u eegaan isleeyahay wuu ekaan karaa Excel grid lines kadib halkan aan imaanaya koran ka wada gelinaya kadib haddana gudaha ka gelinaya cross so okay aan leeyahay siduu ekaanaya adigu waad ujeedaa okay so beautiful now kasaasuu noqonaya quruxdaasuu leeyahay okay kadib waxaan istaabanayaa waan wada highlight garanayaa kadib waxaan sameynaa waxaan rabaa inay qaybtan xogta ku jirto ay ka muuqato sida muxuu ahaa kan oo kale fiiri leemanka hareerahan ka mid waa black waa madow weeyaan kuwaasaan marin rabaa marka waxaan gelinayaa marka halkan aan tegayaa waxaan qaadanayaa tookadan waxaa la dhaho outside border oo black ah si wuxuu ahaa documentiga si khaas ugu caadi ugu muuqdo okay meesha waa aragtaa inuu cross iyo link toos u baxay xarafka muxuu ahaa dollar sign-kiya gudbay eeg space u yeelay waxaan halkan aan tagay qalimka ku soo double click dan geesa u baxaysa okay waa marka perfect inta kadib waxaan sameynayaa marka halkan aan imaanayaa color uu yeelay colorkan uu yeelay waxa waaye theme colors kan uu yeelay basically aan kana qaadanaya kasan qaadanaya lan documentiga hore nidaamkiisa ku socdaa qoraalka gudaha kaga qoran waxaan ku sameynayaa waxaan ka dhigayaa white ama cadaan kadib xogaan weyneynaya qoraalka maadaama ciwaan camal uu yahay laba jeer ku dhufanaya 14 font size 14 ka dhig 14 points ka dhigaya kadib halkan aan imaanayaa okay laakiin intaan gaarin halkan entaas waa inaan capital ka dhiga yeah because that's how it is ka document sameynayso you can't put that as a small letter capital letter okay marka waxaan qaadanayaa qaybtan iyadana color yar oo iyadana dhaalan gashanaya colorka dhaalka aan gashanayana kan weeyaan xogaa aan macnahaas kalarada markaad qaadanayso documentation ka ilaali dad aan jeclaana jiro and it's not professional inaad isticmaasho kalara si caadi u culus maaragta oo iftiimayo oo nuuraya maaragta iska ilaali waxyaabo nuuraya iska ilaali kalara waxaa iska qaataa xogaa dhaaliska oo normal ah iska qaata okay aan isha dhibeyna la qaata kuwan oo kale hadda now I'm not going to take this one okay so kana qaadanaya ka markaan qaato kadib waxaan dhahayaa qoraalkan meesha ku jiro maadaama aad moodo inuu dheer yahay godadkiisa dhaafsiisan yahay waxaan ku sameynaa wrap text aan ku sameynaa text wrap so waxaan halkan aan taabanayaa sida wada qaata meeshan aan taabanaya halkan ku jinaa wrap text markaan arko maarta saasi u istaagaysaa kadib letter T dhinaca u go'day unit letter T dhinaca u go'day marka waxaan sameynaa wax yar intaan qabanaa dhinaca midiga u yar wax yar just small booska ku yar macnaha asaas ah waxay meesha ugu soo baxdaa okay that's good a little bit big hada soo noqota small way xogaa okay that's right interest the okay okay haddana markaad fiiriso qaybtan eeg iyo qaybtan lacaga ku wada jirto lambarada isku si ku wada jiro laakiin qaybtan aad u weyn soo qaybtan inaan yareeyaan rabo xogaa so halkan aan qabanaa qalimku sidaa noqdo halkan aan keenaya ana labada dhinac inay isla ekaadaan kan iyo kan space ahaan isku ekaadaan rabaa okay
beautiful. So kadib waxaan sameynayaa kan maadaama halkan ay lacag ku jirto lambarada dhan midig ay u wada degan yihiin kuwana waxaan sameynayaa right justified aan ka dhigayaa oo halkan aan taabanaya bab dhinaca midigtaan u keedinaya dhinacaasaan u qabanaya okay kadib waxaan sameynayaa eeg halkan lacaga ku jirto sababta waxa weeye waxa ku qoran price by unit internet total in US dollar marka waxaan halkan ku jiro waa lacag laakiin ayaga iyo kuwan hadda lama kala garanayo so in la kala garto weeyaan waa inay lacag noqotaa waxaan so waxaan sameynayaa iyadana sidana oo highlight gareynayaa kadib waxaan sameynayaa halkan aan taabanaya waxaa ku qoran number click kadib hadda general way laakiin accountan geesana aniga decimal places 2 decimal places ma jecli I don't like it I remove 2 decimal places laakiin dollar sign-ka waan rabaa calaamada dollarka okay waa marka so hadda fiiri waxaana wixii lacag ay noqdaan hadda right now dollar everything dollar beautiful asagana dabcan marka hore dollar halkaa u gasho laakiin the other places no okay intaa kadib waxaan rabaa qoraalka gudaha ku jiro meesha inaan xogaa asagana aan yareeyo hadda 11 waayo inaan 10 ka dhigo so halkan highlight gareynayaa ilaa halkan oo keliya then hal mar halkaa eeda yaraan taabanaya hal mar 10 ka dhigaa okay beautiful okay now compare marka isku fiiri hadda egg any difference okay marka just the same okay marka this professional document waa hadda marka waxa weeyaan markaad waxaan sameynayso markaad isticmaalayso muxuu ahaa either Excel Word ama wax Microsoft Office application markaad isticmaalayso wuxuu waa iska biro waxaad adiga gelisaa ama asagana ku siinaya garbage in garbage out halka marka waxa adiga siisay wax wanaagsan ahaayeen waxa adiga barto computer aad ku qorto wax wanaagsan hadaad ka dhigto asagana wax wanaagsan ku siinaa sidan oo kale okay so marka waxa waa iska fiican tahay formatting-ka aad u fiican yahay nadaaminta iyo dejinta document-ga intaadan dirin ama aadan meel kala geyn aad u fiican tahay shaqaalaha qofka booska kuwa qofka aad u shaqeyso hay'adda u shaqeyso wasaaradda u shaqeyso xarunta aad ka shaqeyso dhamaantood wuxuu ahaa way u bogayaan wax nadaamka u samayso qof alaala qofkii financial person ahna markii wixii haday lacag yihiin uu fahmaya wax meesha ka socdaan wax kale very clear noqonayaan quite professional noqonayaan beautiful noqonayaan si rasmi ah document u ekaanaysa marka wax wanaagsan haddii aad cashirkan ka heshay fadlan subscribe inoo saar lana soco qaybaha soo socda insha allahu tacaala ee channelka la soo gelin doono mustaqbalka